al-shabaab waxay ka mid yihiin kooxo dunidan ka fuliya weerarro argagax leh oo isugu jira qaraxyo dad badan galaaftay iyo dilalka dad ay birimageedo ugu badan yihiin waxaana si lamid ah kooxaha kale ee ay la midka yihiin adkaata in muddo kooban lagu ogaado sida ay u fuliyaan qaraxyada iyo dilalka qaar oo u dhaca in gawaari dadka lagu horjaro qoraallo iyo buugaag laga diyaariyey al-shabaab iyo kuwa la midka ah waxaa lagu sheegay in aysan dhammaan doonin xogaha laga helo sanad kasta iyo mar kasta sida ay u geysteen falalka ay qaraxyada ka mid yihiin ee hore u dhacay barnaamij loogu magacdaray gungaar xalayna ka baxay warbaahinta dawladda Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay sida shabaab u geysteen 7 qarax iyo 2 dhacdo oo lagu rasaaseeyay gawaari ay dad rayid ah saarnaayeen dhammaan falalkaasina hal nin ayaa inta badan shabaab uga mas'uul ahaa Canshuur Cusmaan Abuukar oo haatan ku jira gacanta dawladda Soomaaliya kuna xukuman dil toogasho ah ayaa laga helay xogta sida ay dhacdooyinkaas soo dhaceen isaga uuna mas'uulka ka ahaa inkasta oo nin kale lala xukumay lana wareystay haddana isaga ayaa inta badan mas'uuliyadda dhacdooyinkaasi lahaa sida uu waraysiga ku sheegay iyadoo ay dadka qaar aaminsanayeen in shabaab u dagaalamaan aqoon diin waxna u qarxiyaan ayaa Canshuur oo dhowr qarax geystay waxa uu yiri maama wad reemiya ka raasarto waxa uu baran ciidan ana ugu weynaa marka adiga xoolo iyo waxa iska daba oo jiray yaraantii dugsi quraan iyo iskuul midna ma dhiganayo meeshan meel miya laga helo ma iskuul ma laga helo dugsi quraan xawado laga helo ma Canshuur ayaa bishii 8aad ee 2017 wuxuu mas'uul ka ahaa gacantiisana ku geystay dhacdadii lagu rasaasay gaari ay dad shacab saarnaayeen oo ka dhacay agagaarka Digfeer ayna saarnaayeen dad u badnaa hal qoys mana ahayn dhacdadaasi mid bartilmaameed ah oo waxa ay iskaga fureen rasaas isgoyskan Digfeer hortiisa oo dhinacan banaadir marka laga imaado Digfeer marka ka baxdo oo meeshan carwooyinka inta la gaaro ka soo keenay isgoyskii yaro meesha noo saan u leexanay gaari harto gacan la anaga hore maadaniyo wala tan waa weyn way tan ku nasiibsan dhaaniyo tan ma laga fahmo tan waa lagu jira maanta tan anaga hor imaade marka ku bilaawniyo waa ku shubnaadiye ninkii baad hal qasmo ku ridi waa ka cararna markaas ka baxsan waraayay waa shaqada waa galnay ma gashanaa soo baxa iska baxnay marka meelaha siimay uu soo waray ونو بحبه ما تقبلني مني عروض نك دغتان وداني ما يرو لي اسكي صعد ابر كدغتان وداني هذا waxaan asma gorxuna markii ana gaari bensel aad aragtaan marba qabsado undaniyo hada xaraniyo yani shaqada ma dirniyo ma aad malin askari waray waxa dhimal hada soo bax waa weerar kale ay Canshuur iyo koox la socotay bishii 9aad ee 2017 ku fuliyeen gaari kale oo xamarweyne marayay waxaana gaarigaasi ay rasaasayeen ku geeriyooday xoghayihii ururka haweenka qaranka iyo wiil ay dhashay gudoomiyaha ururkaasi waxayna u dileen kaliya in ay ula muuqatay gaari oo qof mas'uul ah saaran yahay gaari saarif oo baraad amal Allah malay uu sama aragniyo waray kan ku qabsanaa adiga barxadan yaasiin maal dhamaan agaarkan algaabta meel dhawaad ay joognay marka waa daba kan isgoyska fiirna ma ku galnayba mid meel waa daba kan horta cabaar inaga horeeyay baash waa ka daba sheel raysan marka daba tagnay isgoyska marka saan isii leexanaysi leex isleys ku shumnay loo kala asad dhignay marnimo wadi waa shaqada waa galnay waa qasqad ku jir maanta sadii dadku jiri wax badda waxaan u maqlay waa gashan waa كعرر ماشي كعررني اصلا ما جمع اسكب احسن هاي تصبح مركان ما كسو داي تي سيدي او بعنا markii marka u tagnay baaniyo ma tabar iyo wiilkeeda ku dhintay oo dhahay tabar iyo darwad waxa noocaas noo sheegay qaraxyadii ka kala dhacay hoteelada Naasah Blood laba Saxafi xarunta degmada Howlwadaag agagaarka tiyaatarka daljirka Daasoon iyo qaraxyo kale ayuu Canshuur u ahaa sahmiyay inuu ka xeeyo gawaari qaar qaraxyo lagu raray qaarna rag hubaysan oo qarax kadib weerarka loogu talagalay dhacdooyinka yaabka leh waxa kamid ah inuu ninkan weerarka hotel Naasah Blood laba ee dhacay 2017 bishii Oktoobar 2020 u qorshaysneed inuu isku qarxiyo dadka u gurmanaya intii qaraxi koowaad wax ku noqotay hase ahaatee gaariga ayaa u socon waayay sidaasi ayuuna kaga baaqsaday qaraxi oo gaariga uu isku qarxin lahaa ayaa kaliya qarxay isagana uu baxsaday qaraxyada maalintaas iyo weerarkii gudaha hotelka Naasah Blood laba lagu galay ayuuna mas'uulka ahaa wax yar ku nasanay markii daba ka soo daayay marka waqti galab ama ka soo baxnay soo soconay magaalada sidoo soo galnay marka
isla marna wadadaas koraan marnay oo wadnaha xagga fardajiina ka soo leexanay inta ka soo galnay marka meesha oo taalada agteeda meelahaas u istaagani marka u istaagay ninkaan na soo dhaafay ku kiciyay marka albaabka markii baasha dhacday waa soo sheelay anina qamaasiinta ilid ku daadiniyo ilid marka ku daadiyay waa galeen marka galeen ana marka go'aankii wuxuu ahaa la soo sharxay macnaha markii qamaasiinta dejiye inaan meesha ka laabto cabaar meelahaas ku soo boojay oo gurmadkii waxaas markii yimaadaan aan hadal ku soo laabto isku qarxay antoos u bacay ku qoranay markaas odaaniyo qamaasiinta marka daadiyay marka anigu gaariga waa istakaatay uu socon way qashin gaariga macnaha aan wataani uu socon waayay marshado inaatar leh socona bis hore dhan waa diiday qad rag iga degan xabad way socotaa baash waa isku lismaysaa adiga gaarigu socon waayo doctorkan ku dhufto doctor wani rag baash waa socotaan dhan ninkan soo diriyo hagaayo waa amirkana wani baash waa socotaan dhan faan ragin meesha way galeen an gaarigu iga halaago iscun laayay ilda iska jooga marka meeshaan asay sugaadaniyo waa cabdibili ugu horeeyo ugu maalan qabsana taas miya wuxuu gaari ka soo degniyo gaariga soo meesha ciidana joogniyo ma leeqata oradi soo degniyo ma ku qornaan soo degadiyo gaariga marka yaa tara waxay uga qaaday yaa tar soo u socday banaanka u bixi xagga geemeesha taalada agteeda martay meesha geemeesha ka geey fataq waa ka dagay marka ka sii daayay sidii martii ay ku dhamaatay qaraxyadii hotel saxafi ee dhacay bishii November ee sanadkii hore 2017 iyo qarax kale oo xarunta degmada Holwadaag lagu weeraray ayuu isla ninkan ka dambeeyay dhammaanna waa isku mid sida uu abaabulay waliba wuxuu qaraxyadan geystay isaga oo madaxda al-shabaab u dalacsiyeen sidii uu u gamaaday dadkii rayidka ahaa ee aan horey u soo sheegnay isaga ayaana sidaasi waraysiga ku sheegay waa uu sii waday abaabulka qaraxyada iyo weerarada oo mar kale qaraxii magaalada Gilgilay 22kii bishii December 2017 ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka iyo mid isla maalintaasi ka dhacay daljirka Dahsoon ayuu u ahaa qofkii sahmiyey kana dambeeyay balse qaraxyada maalintaasi ayaa noqday kuwii ugu dambeeyay ee uu geysto oo durba maalinta waxaa gacanta ku dhigay ciidamada amniga isaga iyo nin kale oo haatan maxkamaddu kuwada xukuntay dil toogasho ah canshuur ayaa marka la isku daro tirada dadka ku dhintay weerarada uu waraysiga ku sheegay inuu u ahaa sahmiye iyo kuwa uu geystayba waxay ka badan yihiin 200 oo qof dhaawacuna waa tiro kale oo intaasi ka badan maantase waa la hayaa oo waa suga dil toogasho ah oo ay maxkamadda ciidamada midda darajada koowaad iyo tan sareba kuwada xukumeen